reer Argaawo waxaynu 26 guuradii ka dhignay inaynu sanadkan ku samayno contribution inaynu inagu wax istarno oo wax wanaagsan oo runtii midadal noqon doona waxaynu ku dhacday abaar 6 bilood oo ku dambeeyay aafaysay gobollada qaar dad badanna hantidii iyo duuday lahaayeen ay ka baxeen waxaynu garanay inaanaynu celebration iyo dabaaldeg samayne walaalaheenna xanuunku soo gaadhay ee dhibtu ka soo gaadhay abaartii inaan la qaybsanno duruuftooda waxaa la taargadgareeyey in $10 milyan Somaliland ururiso marka la yidhaahdo 10 waxaa laga yaabaa inay wax weyn idinla noqdaan laakiin waa wax yaroo fudud $10 milyan saan ururina ka badan baynu ururin karnaa gacan keli sacab ma tunto haddaynu wada jir wax u qabanno wax ka weyn baynu taa qaban karnaa sanaag haddaa tini gobolka iyo magaalada Ceergaawo idinku waxaas xaq gaara laydinku leeyahay xaqa gaara laydinku leeyahay dowladdan hadda jirta madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo contributionkii ama tabarucaadkii ugu weynaa ee ay samaysay gobolkan ay ka furisay waddadii isku xidhaysay Togdheer iyo Sanaag 300 kilomitir baa loo bareeray cid kastoo ka qayb qaadatay iyo dhiiranaanta runtii xalay markaan soo maray dareen gaaraan ka helay waa wax aad loogu farxo wey maadaama aad idinku tihiin qarankanna waa number 1 horumarka waa inaad number 1 ka noqotaan waa in maanta waan wada hadlaynaa reer Sanaag iyo Ceergaawo waddada 300 kilomitir lacag fara badan oo 300 milyan baa ku baxday 10 milyan oo loogaha loo ururiyo abaaraha oo weliba 10 milyan inta u badan gobolkan ay galaysaa waayo abaartu meelaha ugu badnayd weeye dadkaa la xoolaynaya oo dadkii waxay ka baxeen xooluhu waa la xoolaynaya xoolaa loo iibinaya waa qorshaha dowladda ee iminka aanu samaynay waxaa la samaynayaa balliyo ama meelo biyaha aynu ku qabsanno waxaynu samayn doonaa dhiigag waxay u badnaan doontaa meelahay abaartu u badnaayeen maadaama aa u badnaanaysaan contributionkaa la samaynayo qaaraankaa la samaynayo qaybta ugu laxadlaa qaadanaysaan maadaama aad tihiin gobolkii intay dowladdu jirtay mashruucii ugu weynaa laga fuliyey waxaan doonayaa hormood ka noqotaan oo lalaa Ceergaawo gobolkii Sanaag 10 milyan 2 milyan buu qaatay waxaa ku keenaysaan taa diiwaangelin baynu samaynay 100 kun wax ku dhow iska diiwaangeliyey gobolkan 100 kun waa inta ka da'doodu ka weyn tahay 16 sannadood laakiin waxaa jira 7 jir ilaa 15 jir ayaa 200 kun oo ku nool gobolkana wuxuu gobolkani koobsaday ilaa 400 kun ilaa 500 kun ay ku nool yihiin waxaynu ku dhafsanaynaa 200 kun average kun baynu isku soo celinaa ilaa 250 kun $5 baynu ku dhufanaynaa waa halkii milyan baa halkaa ka soo baxaya oo soo maaha halkaas halkii milyan ka soo baxaya halka milyan lama oranayo qof walba $5 bixi ka waxaya 20 buu bixinaya 15 buu bixinaya 10 buu bixinaya ka yarina $1 buu saciisa bixinaya average marka la isku geeyo waxay ku soo fariisanaysaa $5 marka 200 kun oo reer Ceergaawo markay bixiyaan $5 halkii milyan banaanku naga la socdo taan isku ogaanaa reer Ceergaawo balan ma tahay taasi haddaba sidee bixinayna qaabkeeda bixinayna inta guriga lagu yimaado mooha inta kale halkan waxaa ku qoran waxoogaa aynu seegno halkan waxaa ku qoran saad baa ku qoran halkan iisaagna waa ku qoran warqadaas adoo gurigaaga jooga warbaahintaa laydin soo gelin doonaa waxaa laydin soo gelin doonaa text message bay idinku soo diri doonaan ama telesom ama somtel number golisana waa ku daraysaan 3 number baa lagu darayaa hawdooda waan hala xishoonin $2 baad ku tuuraysaa $1 baad ku tuuraysaa $5 baad bixinaysaa ka hayaa qolada qaysha waxaa laga yaabaa
ربعي ما أنت عطوس كبر حوس كسيحه فالدولة الدولة مع البيئة مع الشاه مع حوالي فوتشسكا وحلقيها وطولة دولة كتب إذا أنت وحوالات رفورة موحي بسنة زينة سلاحة كما يسبب شلو حتى يتوقع كتورتو أما شان دولة كتورتو إذا كما يستعيسوا هدو أما قلس أما ساتكا أما إيد دهبكا هدو كتورو وحلقيها واحد وين هنا هنا كسوبحان وحنا الكبرى الشريعة runtii firfircoonaan baa lagu yaqaanay reer Gaabo dadka kaga horeyseen tii la idinka arko sanadkan insha Allah biidnillah ina ka noqotaan horumar baan idinka filayaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu raxmadka ilaahay noo sii wado nimco fiican baan waxaanu ka soo baxnay togdheer ilaa halkaa xareedda waa joogtaa laakiin waxaan aad iyo aad uga naxsanay barcadda iyo meelihii barankii aan soo mari jirnay ee ariga faraha badani joogi jiray oo shalay waxba ku arki weynay runtii oo aan neef joogin marka waxaynu u baahannahay inaynu dib u soo celinno dadkeenni miyiga inaynu neefkeenni dib u soo celinno inaynu biyaha qabsanno inaynu ka faa'iidaysanno inaynu dadkeenna istaakurayno insha allah biidnillah aad iyo aad baan idin salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu